kulanto wacan oo wanaagsan dhammaan inta ku xiran TV Luq News Official kusoo dhawaada Sky Sports Luq waxaan ku guda jirnaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyada waxa soo afjarmay kooxda Hormuud ciyaartooyada fara badan ay gacmaha kula jirtay laakiin waxay qoorta soo qabsatay laba ciyaartooy laba koox ayaa kasoo kala qabsatay ninka ugu horeeya waa lambarka daafaca dubaha ayaa la yiraahdaa kaare kala soo baxday waa nin khibrad u leh ciyaarta kala soo kacday waa nin oo difaaciisa khibrad u leh waa nin oo difaaca dhowr nooc soo bixiya banooniga waxa ku soo haray master ilow goolana lagala soo kacay argoolan maxaa lambar laga soo bixiyay har maxaa cakaar lambar laga soo bixiyay goolana waa laga siibay ilow lambarka dhaxda ayuu dheelaa waa bulsiisanista waa nin banoonigiisa halis ah ilow waa nin oo sida banoonigiisa markuu qabsado oo aan la dhihi karin banooni oo dhimanayo waa banoonigiisa mar walba aad ayuu u sii noolaadaa waa nin dhaxda ah waa nin oo banoonigiisa khibrad aad u weyn u leh dhaxda haddana markii bulzon la dhahaa birtaas halis waa la soo kacday goordana lagala soo kacay waxay noqotay labada ciyaartooy isku soo afjarto Hormuud kooxda Hormuud way soo afjartay laba ciyaartooy bis ayaan baahnay tiraan ku soo afjartay suuqa waxa ku jira kooxo fara badan ku jiro laakiin waa idin soo gudbin doonaa hadda labada ciyaartooy ayay Hormuud la soo kacday ayaalna iyo ninka la yiraahdo ayrow saxiixaasna wuu dhacay waana arkaysiin labada ciyaartooy saxiixoodan waa aragteen waana idin tusay sawiraantiisa aylow sawiraantiisa iyo ayaalna sawiraantiisa waa idin tusay waa arkayseen hoos ayaa idin soo dhigay ciyaartooy walbana sawirkiisa iyo saxiixiisana waan soo dhigayaa hadda la idmo waxa way suuqa koox badan ku jirto Somtela ku jirto Golden ku jirto Elman ku jirto Youngstar ku jirto Xilaaistaan way la kacday laakiin saxiix ma hayno waana soo sheegi doonaa waa aniga iyo farsamayaqaanada idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكاي سبورتس لوغنانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته